بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صاحب عيال waxaan doonaynaa inaan halkaan ka soo jeedino barnaamij aan uga hadlayno xeerarka dooda ama cilmiga dooda. Doodu waa hadal isweydaarsi dul aroorayo ama ku saabsan qadiyad gaar ah una dhaxeeyo laba ruux ama laba koox oo ku kala aragti duwan qadiyadaas ay ka doodayaan. Mid kasto oo kamida labada ruux oo doodu u dhaxayso waxa uu xusul duubaya inuu dadweynaha ka gado saxnimada aragtidiisa iyo khaladnimada aragtida dhinaca uu la doodayo. Inkasto mid kasto kamida labada ruux oo doodayaan oo u xusul duubayo in aragtidiisa in saxnimada aragtidiisa uu ka gala dadweynaha iyo khaladnimada aragtida dhinaca kale haddana waxa khasaba in targetkii ujeedada labaduba ay noqoto gaarida xaqa ayada oo loo maraayo ama wasiilo ay u noqonayso doodu. maadaama aan raahday doodu waa hadal isweydaarsi dul aroorayo qadiyad, su'aashu waxa ay tahay waa maxay qadiyad? qadiyad waa jumlad run noqon karto been noqon karto oo qofna ay aamini karto in ay run tahay qofka kalena ay aamini karto beennimada jumladaasi. qadiyadu waxay noqon kartaa qadiyad diimeed, waxay noqon kartaa qadiyad bulsho, waxay noqon kartaa qadiyad siyaasadeed, waxay noqon kartaa qadiyad sharci, waxay noqon kartaa qadiyad maxkamadeed, waxay noqon kartaa qadiyad kasto oo xiriir la leh qayb kasto oo kamida qaybaha nolosha. tusaale haddaan iraahdo Soomaaliya waa dawlad federaal ah waxaan dhihi karnaa waa qadiyad, sababtoo ah dadka qaarna waxay aamini karaan runnimada qadiyadaas oo waxay rumaysan karaan in Soomaali ay tahay federaal, halka dadka kalena aynan rumaysan karin oo ay diidi karaan in Soomaaliya ay tahay dawlad federaal ah. xaqiiqada dhabta ah waxay imaan kartaa oo runta la gaari karaa markii qadiyadaasi laga doodo oo dhinaca aaminsan jiritaanka qadiyadaas oo adillo u keeno, dhinaca aanan aaminsanayn jiritaanka qadiyadaasna oo isku dayo sidii uu u burin lahayd adilladaas la keeno. dooda labadaas qofood dhex marayso ayaa waxaa ka soo bixi doonto qadiyadaasi inay run tahay iyo inay been tahay. aqoon-yahanada daraasadeeya cilmiga dooda jumlada ah Soomaali waa federaal waxa ay u yaqaanaan qadiyad, halka dhinaca qadiyadaasi difaacayo oo rumaysan jiritaanka qadiyadaasina ay u yaqaanaan difaac. sidaas oo kalantood dhinaca qadiyadaasi ka soo horjeedo oo diidanna waxay u yaqaaneen weerar ayay u yaqaanaan. haddaba annagoo ka duulayno tusaaleynta iyo qeexitaanka aan sameynay, dood kasto oo dhacayso waxaa lagama maarmaana in laga helo 3 tiir oo kala ah. kow waa in la helaa mowduuc doodaasi ay ku saabsan tahay oo ah qadiyadda laga doodayo. number 2 waa in la helaa cid qadiyadaasi aaminsan oo u taagan difaaceeda oo soo aroorinayso adillada lagu difaacayo qadiyadaas isla markaasina ka jawaabayso su'aalaha iyo doodaha dhinaca kaleentood. cidaasna waxaa loo yaqaanaa difaac. number 3 waa in la helaa cid qadiyadaasi diidan oo ka soo horjeedo oo u taagan sidii qadiyadaasi ay u burin laheeday, qofkaasna waxaa loo yaqaanaa weerar. haddii la waayo mowduuc laga doodo ama qadiyad laga doodo oo runna ixtimaasho beenna ixtimaasho dood ma dhici karto.
sidaas si lamida haddii la waayo cid qadiyadaasi jiritaankeeda aaminsan oo isu taagayso difaaceedana ma dhici karto dood sababtu labada dhinacba dhinac difaaca ma lahane way wada diidan yihiin sidaas si lamida haddii la waayo cid qadiyadaasi diidan oo ka soo horjeedo oo weeraraysa haddii la waayana ma dhici karto dood sababtu waxa waaye dadka dhanba waa qadiyad ay wada aaminsan yihiin haddaba haddii aad doonaysid in aad qayb ka noqoto dood ku saabsan qadiyad aad aaminsan tahay aadna doonaysid in aad ciyaarto kaalinta difaaca muxaadaraadka soo socdo waxa ay ku bari doonaan habkii aad u difaacan lahayd qadiyadda aad aaminsan tahay iyo sidii aad u samayn lahayd adillada iyo xujooyinka aad ku difaacaysid qadiyadda aad aaminsan tahay sidaas si lamida haddii aad doonaysid in aad qayb ka noqoto dood ku saabsan qadiyad aad diidan tahay muxaadaraadka soo socdo waxa ay ku barayaan wasaa'ishii ama habkii aad qadiyadaas dadweynaha uga dhaadhacsiin lahayd in aynan jirin oo ay been tahay iyo sida aad u burinaysid adillada iyo xujooyinka cidda qadiyadaasi difaacayso ay soo aroorinayso sidaasoo kalantood haddii aad tahay dhegayste hadal qaybiye ama xiriiriye ama garsoore muxaadaraadka soo socdo waxa ay ku barayaan halbeegyadii aad ku ogaan laheeday cidda ku saxsan dooda oo ku guulaysatay وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته